gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu kormeer indha-indheena ku mariyay deegaano hoos yimaada gobolka Saraar. Gudoomiyaha iyo wafdidu hogaaminayo ayaa waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay degmada Og ee ka tirsan gobolka Saraar. Soo dhaweyn kadib mas'uuliyiinta degmada Og ayaa halkaasi ka hadlay ugana warbixiyay xaaladda degmada. Gudoomiyaha gobolka Saraar iyo mas'uuliyiinta uu hogaaminayo saaka gudoomiyaha cusba ee gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo madaxda kale la socotay ka mid yahay taliyaha qaybta barasaab ku-xigeenka xogayaha gobolka isuduwayaashii gobolka qaarkood waxaan idin leenahay ku soo dhawaada degmada Og. wax badan baan tabanaynaa haddaanu nahay degmada Og waxaanu ka tabanaynaa gobolka ayaanu ka tabanaynaa waxay ila tahay kii tabashada wax ka bedeli lahaana inuu ilaahay adiga kaa dhigayo. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii gobolka Saraar. gudoomiye ku soo dhawow adiga iyo madaxda kale aad iyo aad baan idin soo dhaweeyay si fiican baan idin soo dhaweynaynaa wixii cabasha iyo wixii wada hadala iyo wixii aynu ka kulmayno xafiiskaagaan kuugu iman doonaa. gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Aadan Cabdi Cawaale. waxaa waafaqsan horta sidaa uu nuur sheegay inaan waana cusbayne intii cusubka waa dhamaystayaan ahi magaalada tan maxaan ku dhahdayay Og aad iyo aad baan u ammaanayaa xagga nabadgelyada ugu ammaanayaa aan ka wada shaqayno waa nagala shaqaysaan si wanaagsan baa noogala shaqaysaan reer Saraareedba meeshii ay joogaan ee wax ka dhacaanba way nagala soo hadlaan laakiin waxa la faraska jeedalka waxa loogu dhiftay inuu ka sii kordhiyo aan ka sii kordhino. salaanta kadib runtii farxad gaar ah bay tahay in aan maanta booqashadii ugu horeysay aan ku imaado degmadan Og oo runtii degmooyinka gobolka Saraar degmada ugu faacweyn ay tahay. marka waxaynu jecelnahay inaynu horumarka iyo wanaaga iyo isdhexgalkaasi uu keeno kalgacal iyo magaranaysa in magaaladiina fido dadkuna ku soo dhiiradaan dadka hantida haystaana ay runtii aaminaan baa qurux badan idinku baraarujinaya. waxaan kaloo jecelahay wixii gobolka xaq u leedihiin waa helaysaan haddii Ilaahay ka dhigo. imika wiigii dhaweedaan joogay bada waxa idin yimid oo leedan dhagax dhigay MCH bay ahayd xukuumadda dowladda dhexe ka yimid. si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha gobolka Saraar ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu kormeer ku mariyay deegaano hoos yimaada gobolka Saraar. socdaalka gudoomiyaha ayaa waxa uu salka ku hayaa u kuurgalka xaaladda dad iyo dunyo ee bulshada ku nool deegaanada gobolka Saraar. Waa Cali Aadan Dirir Cali Taani, wararka telefishinka On Cable, magaalada Caynaba.